بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى عبادات كان هنا أقبله وحسنا هنا وافجيه. موضوع كان علو الهمة أو الهمة العالية، وموضوع runtii guda ballaaran lagana yaabo jawaanibta qaarkood inaan hore uga hadalnay oo ramadaanna sii horeysay. waxaan xasuustaa halkan inaynu kaga hadalnay ataaqaat almuhadara ee wadaaynu dayacnay. mawduuc kale waa laga yaabaa inaad nadka ka heshaan oo iqra waktub ku saabsiisan aqoonta. mawduuc saddexaad waa laga yaabaa inaad nad ka heshaan oo ku saabsan kobcinta maskaxda, iyo kan maanta aan ka wado. afarta mawduucba dhan bay wada socdaan. alhima alcaaliya, alhima fi lluga wamaa huma bihi min amrin liyufcal. waa waxa lagu warwaro ama lagu fakaro si loo sameeyo, ama himada waxay ku tilmaamaan albaaciثu cala alficl. waa waxa qofka ku bixiya inuu wax sameeyo, dabeetana himo koraysa iyo himo hoosaysa lagu sifeeya. culamaa'i luga qaar ka midii waxay leeyihiin sida saaxibulmisbaax, alhimma oo bilkasriya waa awalu اlcasm, laakiin waqad tuطlaq cala alcasmi alqawiy. ibnu اlqayim raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahay himmadu waa ficlaة min alham wa huwa mabdaأ اliraada. waa doonistu halka ay ka bilaabato, waxaa qofku uu ku hamiyey waa waxa koowaad ee waa iraadada halka ugu hoosaysa. laakiin buu leeyahay culammada fanniga kan ka warantaa buu leeyahay waa masalaةu suluuk markuu ka warramayo, khasuha binihaayaة اliraada buu yidhi. iyagu waxay ku gaar yeeleen markay alhima alcaaliya ka warramayaan ama himada markay ka warramayaan, inkastoo luqada ay tahay buu leeyahy mabda'u liraada, haddana fannu suluuki wazuhdi marka laga warramayo nihaayatu liraada baa loo adeegsadaa buu leeyahy, halka ugu dambaysa. idan falhamu mabda'uhaa waalhimmatu nihaayatuhaa buu leeyahy. hamiguna waa bilowga, himmaduna waa nihaayada ama dhammays halka ugu dambaysa. yacni masalada tan culuum tiro badan oo kala nooca lagaga warramaa. kabna alqayim wabna aljawsi waman shaakalahum, culammada cilmi nafsi alislaami aw isuluuk, dhaqanka iyo sida loo bedelo iyo cibaadaadka iyo wixii la halmaala ka warramaa, way ka warramaan kutubtoodana in badan baad ku arkaysaa. culamaa'i alakhlaaq, akhlaaqiyaadka culammada ka warranta ee muslimiinta ah, iyagana kutubtooda in badan baad ku arki doontaa ay masaladan kaga warramayaan. culamaa'i tarbiya oo ka warramaya dhallinta iyo sidii han loogu samayn lahaa, iyo hanka waxa hoos u dhigaya waxa kor u qaada, oo aan qadiyadda social qura loo daynin. yacni social markaynu leenahay bulshadu inta badan waa tabaqaad. maalan bulshada tabaqada xaakimkee wax maamusho ee boqorrada leh, maamulayaasha sare leh, kuwa dhashoodu inta badan han saray ku koraan, waayo guri bay ku koreen dee bulshadu ay u baahan tahay oo iyaga laga maamulo. bulshada dabaqada hoose ee xoogsatada aan waxba haysan, dhashoodu waxay ku kortaa hanyari, waayo inta badan haddii aanu dee aabbaha ama hooyada ama faamiligaasi ahayn faamili tarbiyo fiican bixinaya ee ay tarbiyada bulshada ku sii daayaan, ilmuhu isna hanyariya intan aabbihii ka shaqeeya inuu qabto uun ayuu ku koraa. idan culamaa'i tarbiya waxay ka warramaan see bulshadoo dhan han sare loogu samayn karaya. culamaa'i nafs, iminka dee casrigan dambe waxaaba jira qayb ka mida psychology oo la idhaha positive psychology, ay kaga warramaan bini aadamka see more talented looga dhigi karaa, more efficient looga dhigi karaa, see han sare loogu sameeyaa. waa farac ka midaba hadda maxay furuucda cilmi nafsi. idan kullu haadihi alculuum midba jaanib uu ka soo galaba waxay ka wada warramaan hankan koreeya. markaynu leenahay waxaynu ka warramaynaa culuwu lhimma, waxay culammada badh ku tacriifiyaan inay tahay istisqaar maa duuna nihaaya min macaali lumuur.
waa qofkoo yaraysta wixii ka hooseeya arrimaha kuwooda sare yacni waxa hoose aan qiimo badan siinin ama waxay dhahaan waa talab almaraatib asaamiya waa qofkoo raadiya heerka ama martabadaha sare uun ka fakero oo raadiya walidalik baa raagib alasfahani wuxuu leeyahay kabiirulhimma marka la yidhaahdo waa qof hamad sare marka la yidhaahdo waa qof aan raalli ku ahayn buu leeyahay hamiga xayawaanka oo hamiga xayawaanku waa maxay waa qofka oo ka warwara uun buu leeyahay caloosha buuxinteeda iyo farjiga haqabtirkiisa iyo intaa ka warwara waa hamiga xayawaanka buu leeyahay kaa waxa ka sarreeya baa la yidhaahdaa buu leeyahay alham alcaaliya culamo kale haddaynu tacaariiftooda tilmaamno waxay leeyahay waa nushdaanu alkamaali almumkin waa qofka oo raadiya dhammaystiranka bini aadamka halkee qofku markuu gaadhaa buu dhammaystirmay oo aan ku meelaha hoose ee bini aadamka iyo aragtiyihiisa aan ku koobsanin saa daraaddeed baa waxaad maqli doontaa iyadoo la leeyahay fulaanun duu himma aw duu caziima hebel waa nin himmo sare leh ama caziimo leh ama hamigu inta badan waa alfikru fi isaalati almakruuh waa warwarka hamiga caadiga isagu waa qofka oo wax ka warwaraya mushkilad haysata siduu xal ugu heli lahaa haddaba markaynu hamiga koreeya ka warramayno waa arrin ay soo hoosgelayso aljiddu fi lumuur qofkoo si hagar la'aana wax u qabta waa arrin ay soo gelayso altarafuc can asakaa'iri waddanaaya qofkoo ka hansareeya waxyaabaha liiliita ama hooseeya waa arrin ay soo hoosgelayso altumuux ila almacaali qofkoo hiigsi fog ama hiraal fog leh meel durugsan hir fog raba inuu gaadho ama se eego idan waxaasoo dhan waxaa soo wada hoosgelaya culuwulhimma ibn اljawzi raxmat ullaahi calayhi fii kitaabihi sayd alkhaatir aan kelmad idinka soo naqliyo waa culimmada runtii masaladan aadka uga warranta wuxuu leeyahay bini aadamka hadday suurtagal noqon kari lahayd inuu cirka koro wakhtigiisii dee cirka lama fanan jirin iminkase dee waa tan rokityada iyo wax la dirayo waa tan laysku hayaba safar siyaaxa ma laga samayn karaa xidigaha sare qaar ka mid ah in siyaaxa loo tagaaba bini aadamka hamigiisu hadda ku jira laakiin cahdigiisii dee cidduu shaaba ma jirin cabbaas ibnu faraas miyaa la odhan jiray ninkii caalimka muslimka ee koowaad ee isku dayaya inuu duulo dee isna akhirkii waaba u dhintay intuu minaarad ka soo booday baalal iyo waxbuu rakibtay dhowr goor horuu ku guulaystay maalintii dambu magaaladao dhan yidhi isu soo baxa dabeetana meel sare ayuu ka soo booday baalashii iyo waxbaa si uga furmo ka dabcay kadibna wadaadku dhabarkiiyo waxbuu ka jabayba wuu u dhintay yacni markaa waxay ahayd nin baa duulaya dee waxaan la arki karin bay ahayd haddaba wuxuu leeyahay ibn اljawzi haddii la sawiri kara buu leeyahy ciduun hadday suurayn karto lilaadamiyi sucuudu samaawaat in cirka la qaban karo haddii la sawiri karo la ra'aytu min aqbaxi الnaqaa'is ridaahu bilard waxaan u arkaa buu yidhi meelaha ugu liita inay ka mid tahay inaad adigu raalli ku ahaato inaad dhulka iska joogta buu leeyahy haddii ragba cirka u kacay inaad adigu dhulka fadhidaa waa doqoniima buu leeyahy ibn اljawzi walow kaanat الnubuwa tuxasilu biاlijtihaad haddii buu yidhi nebinimada dadaal lagu heli lahaa iyo howlkarnimiyo ninnimo hadday nebinimadu wax lagu gaadho ay tahay la ra'aytu اlmuqasira fii taxsiiliha fii xadiid ninka nebi noqon kari waaye isagu iska fadhiya doqonnimaynu u arki lahay buu yidhi hayra annahu إida lam yumakin dalik fayanbaqii an yuطlaba almumkin arrimahaasi hadda suurtagal maaha buu leeyahay casrigiisii laakiin wixii suurtagal ee kasta in la raadaceeyaa weeyaan buu leeyahay aragtida toosani waxay tilmaamayso idan ibn اljawzi raxmat ullaahi calayh fii kitaabi sayd alkhaatir wuxuu inoogu tilmaamayaa bini aadamka inaad meel soko hankaagu uu ku hadhaa inay nacasnimo tahay liidnimo inay tahay iyo shay laga koro laga weynaado hadday jiraan rag cirka koray buu leeyahy dhulka raalli marnaba ha ku noqonin adigu inaad joogto wuxuu kaloo leeyahay haddii nebinimo ijtihaad lagu gaadhi karo tan dambe iyadu suurtagal maaha weligaaba dadaalay nebi ma noqon kartid nebinimadu waa maxay waa istifaa allahu yastafi ilaahay baa doorta
laakiin wuxuu leeyahay haddiiba ay suurtagal oo bini'aadamintu ka fakaro la odhan lahaa dadaal baa lagu gaadhaa inaad nebi noqonin waa nacasnimo buu leeyahay ee waa inaad kor u kortaa si aad meeshaasi u gaadhi karto haddaba ayuha alaxiba masaladaynu ka warramaynaa waxa weeyaan insaanku wax kasta oo mumkina oo uu xaqiijin karo wax kasta oo suurtagala oo uu xaqiijin karo fi ayi majaal inaad raadacaysaabaa muhima wax kasta oo suurtagala in la xaqiijin karo inaad raadacayso ibn اlqayim aljawsi raxmat ullaahi calayhi baasina wuxuu leeyahay caamadu dadweynaha waxay yidhaahdaan buu yidhi qiimatu kullu mri'in maa yuxsin qof kasta qiimihiisu waa waxa uu hagaajin karo waa farsamadu yaqaaniyo wuxuu yaqaano waalkhaasatu taquul buu yidhi laakiin dadka indheergaradka iyagu waxay yidhaahdaan buu yidhi qiimatu kullu mri'in maa yatlubu qof kasta qiimihiisu waa hankiisa iyo halka uu hiigsanayo wuxuu doonayo yacni caamadu waxay yidhahdaan buu leeyahy qof kasta waa intuu garanayo laakiin khaasada waxay tidhaahdaa buu leeyahy qof kasta waa intuu ku haminayo iyo intuu ku warwarayo uu raadinayo abu طayib almutanabbi shaacirkii carabeed ee macruufka ahaa almutanabbi dee waxaabuu isku dayay inuu nebi sheegto waxoogaa buu ka tabarhtabarhsiiyey markaasaa la xidhay aakhirkii buu ka toobadkeeno uu ka soo noqday mutanabbi baa wuxuu leeyahay gabyadiisa diiwaankiisa qayb dhan baa ku jirto aad u tiro badan oo uu kaga warramayo hamiga sare iyo hanka sare iyo qofku meeshu walam ara fii cuyuubi الnaasi cayban ka naqsi اlqaadiriina cala tamaami buu leeyahy maan arag buu leeyahay ceebta bini aadam ceeb ka liidata qof wax awoodo hakradoo meel hoose jooga qof wax awoodi kara oo haddana aan samaynaynin ceeb ka liidata anigu maan arag buu leeyahy ayuha alaxiba himmadu markaa waxay idhahdaan waa laba qaybood qayb waa wahbi yacni waa loo dhashaa qaybna waa kasabi bay yidhaahdaan waa laysku tarbeeyayaa waa la kobciyaa laakiin qof kastoo bini aadami nooc min alhimma wuu ku dhashaa walidaalik baa waxay ku tilmaamaan bini aadamku wuxuu ku kala gedisan yahin bay yidhahdaan laba shay mataalibahum wa ahdaafahum waxa ay doonayaan ama hadafkoodu wuxuu yahay taargetka goolka yoolka meesha uu raadacaynayo halka uu ku socdo bini aadamku ku kala gedisan yahi dee nin janno doonayo raadcadeed ku jira oo booska ugu yar uu yahay dunidan tobanlaabkeed iyo nin qurs yaroo dunidana qayb ka mida ku mashquuli waa kala nooc waa laba hamoo cirka iyo dhulku inta isu jira waayo ninna wuxuu raadcadeed yahay adduunkan tobanlaabkeed baa ninka u boos yari leeyahay marka adduunkan tobanlaabkeed wax ka ballaadhan buu habeen iyo maalinba raadcadii ku jira ninna wuxuu raadcadii ku jiraa maxay in yaroo adduunka ka mid ah madaxnimo tuulo yaroo intaynan aynu deganoo kale inuu maamulo iyo wax la mid ah waxoogaa lacaga reer hebel inuu u dhaqaalo bato inahaasuu raadacadiisu tahay waa laba hamoo aad u kala fog idan bini aadamku mataalibta iyo ahdaafta waa ku kala gedisan yihin waxay kaloo ku kala gedisan yihin bay yidhaahdaan alhimam almuusila ilaa hada almataalib walahdaaf hanka gaadhsiinaya meeshaa oo mid baa han iska haya laakiin hankiisu waa riyo maba dhaqaaqo waxba ma qabto idankaasi day dreaming buu ku jiraa waa qoladan ay yidhaahdaan socodku ku riyooda dadka badhna markay seexdaan oo quray riyoodaan dadka badhna iyagoo soconaya riyoonayaan soo jeeda yani ninkani waa riya wixiisu waxay yidhaahdaan markaa qofka ku haminaya mataalibta sare carab ahaan af ahaan ka sheegaya laakiin ficilkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisu aanu u muuqanin caynkaasi waa mutamanni bay yidhaahdeen maqruura laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli اlkitaab man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ammaanidiinna waxaa iskaga yididooloonaysaan ma aha baa ilaahay leeyahy iyo ahlu kitaabku iyaguna waxay ka yididooloonayaan ee man yacmal suu'an yujza bihi ciddii xuma samaysa waa lagu abaalmarinaya idan qofka isagu hami baan leeyahay leh
لكن فعلانه كم مغنني كاسوا متمني أما هو مغرور ومثل كديي مطالب الدنيا أنا التمني غورا لقوم قاله الدنيا غلابة بيد هذه ورقس كردعين يا لولن أي لقو قاده oo loolanka ay ugu horeyso naftaada aad la loolanto wax ku xidhxidha naftaada ugu adag in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma bil anfus hadanat jabinin waad xidhxidhantay waataynu hore u tilmaamnay inaynu silsilada nafta ka jabinayno macnaheedu haddaanad xadhigan koowaad jabin ficilku maba socdo walidalik addunya ghallaaba bay yidhaahdaan waxa lagu gaadhaa lagdan idan dadka waxa ka mid ah qaar koow kuwaasi waa gruubna iyaga marka horeba hamigooda liita oo safaasif al-umuur iyo wixii liita ayay hamigoodu yihiin oo qaybta tan han wuu leeyahay hadafka ka xun مثلا waa nin han leh laakiin hadafkiisa in la tunto iyo in la heeso iyo in la boodboodo iyo in dunida la marmaray intan ba hadafka liita laakiin shaytaannimada wuu ku xeel dheeriyay xog buu jiiraya waa leeb xagga kale uga dusaya laakiin ka hadii hadafka loo saxo wuxuu noqonayaa kuwii nabigu lahaa maxay annaasu macaadin khiyaruhum fil jaahiliya khiyaruhum fil islaam idha faqahu wadul haday wax fahmaan toosanaan kara dadka badna hamiba male sida xooluhu isaga nooliyay wixii la cuni lahaa iyo wixii la cabbi lahaa waagu saakana bariyayna dhaqaajiya weeyaan hadceedan soo baxeedu iska sugaya wax kale oo uu ku hamilayay ma jiro waxay yidhaahdaan kuwaasi waa kuwa hadday joogaanna wax lama weydiiyo hadday maqan yihiinna lama tabo meesha hadday joogaanna cidi wax ma weydiiso hadday maqan yihiinna lama tabo erayadaasi afarta kooxood aynu qaybinay bitacbiir ibn al-qayyim hadaynu soo qaadanay wuxuu leeyahay bini aadamku wuxuu ku kala gadisay buu yiri laba shay macrifatu al-haqq min al-baatil oo ahdaaftiya mataalibta ah iyo iithaaru al-haqq ala al-baatil oo hamigi kugu bixinayay xaqa iyo baatilka inaad kala garato iyo xaqa inaad ka doorbido baatilku aad raadayso masalada markaynu eegna buu yiri basharku أقسام فرع وقيب سمان كوحدة وقصر ريسابولي وأنبيضة إلهي القرآن كوحك لي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار بعد حستابة إلهي إلي يدومها يجي نبي إبراهيمها إسحاقها يعقوبها سدح نبي يسر علي إلهي محكو سفينيين أولي الأيدي والأبصار وأولي الأيدي أولي قوة قوة نفسية همة عالية قوة عملية بيليين waxay kaloo yihiin baa la yidhi ulil absaar waa indheergarato labadiiba iyagu way wadaagaan hadafkuna wuu cadiyay oo xaq iyo baatil way kala garanayaan meesha lagu socdo ahdaafta koraysa iyo kuwa dani ah waa u kala soocayin himmadii iyo waxqabadkiina way leeyihiin idan bulshada groupka labada hela ugu sareeya waxa ugu hooseeya groupka labadaba la من ليس له بصيرة وهو ضعيف أركتي فوقنا ماله همد وحقبطه يا أود وحقبطنا ماله أقوننا ما شرته همنا ما شره كاسنا وكانوا لهين سقوا ترسيس ماها قيب سدحات باشرته هدف كوو قرنا لكن همدي ساير والمؤمن ضعيف كنبي وكتل مامي هدف هو قرنيا جنة إيا النار إيا النار لقى بحثو جنة لقبتو إلهي إلا الرادع إيا أدون كانوا فوقين هدف كاسي وعديه لكن هو ضعيف الهمة وحقبت كي ساير أركتداسي انتو الصعدو أيا قابا قيبت الصدحة أفرادنا وقال هذا عكسي قيدو عزيمة إليين يهمة لكن بصيرة ودا ليدته إذن وحي دقاقبة ويسكر راعيا لكن راعسته ودا حولي كصعنس شركة هدو بلابنا حولو شريا خيرك هدو بلابنا حولو شريا لكن وحا ليته كلا سعودة مركز سوح لي ابن القيم
لا يكاد يميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء ثمرة وكل بيضاء شحمة، ويحسب الورم شحما والدواء النافع صمة، لأنه ليس عنده علم وبصيرة في الدين بولي. وحي عدبة برور بموذا يا بولي، وحي عدبة برور بوها استابولي، وحي مدوبنا مدو موذا يعني أقوانتها الليدة، لكن هي مدي سوي سريسة كوح قرى هجانك وعدنته. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين والصبر كوح ذا سوقنا أيها هجانو عنتنته. هذا أيها الأحبة وحين لنا هذا هدفك صح نغضه همده ولا جمارمان إن تقف هم له هان له هيكسي له هيرالو موغضه inaad noqoto waa laga maarmaan. himadu meesha ay degtaana waxay culimadu yiraahdaan waa qalbiga. haddii himadaadu ay korayso xataa jidhku hadduu quyuud ku xidhan yahay quyuudda wuu ka furfurmaa. himadu hadday korayso balaan laba mucqad laba qof oo kursi ku dul fadhiyaan tilmaamo. فلسطين ومقشان يو أرور حماس اللي دو يهود جهاد كل شروس كدعيو دون ده وحي بميا ليل قراعية والاستفاعية. أرور كان إنك سمية هجامين يه هجيي كرسو دول صراء مال دقاق دو شركي سيما شرين مركو وحخرين أيو وراغضة كتاب كقرآن وأخرين أيينا ندلاو رجو شري مالين باي وحي دادانين كودالي بس ساحدي كجماعي شو الرجابو جروا هاي كتاب كي وآخرية وراغديس عرب كويس كديين وكل رجاب مال دقاقدا عربوا ليه. مع ذلك حق يهودات بهر تاجين هاي دختر كي سايري واد بادو تمردر رئيس واحد وباهنت إن الصينو تبتنا وحولي ماي مساجد كهاللي جيو رمضان بهذا وعوا سوتشي ده يا أبوه وعبادة سنة يا سوتشي ده isagoo kursiga lagu sidaa laga soo saaray masaajidka. Israa'iil ka kursiga lagu siday inta uu adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantanimada cirka maraynta loo soo diray gantaal lagu dhuftay. yani ninkaasi hamu siday jidna intaas u kayay itaalkiisu waa carabka dhaqdhaqaaqaya aqligana uu qabaa. laakiin isma oran muqcad baatay qof fadhiya baa taan waxba qaban karin isma lehe wuxuu u taagayay inuu diintiisa iyo ummadiisa iyo dadkiisaba xoreeyo. ummad dhan buu u ahaa maxay hoggaan ruuxiya oo hogaaminaya xarakaad dhan oo jihaad iyo isdifaac iyo wax iska rabaya. dawlado dhan oo dunida waaweyn baa u adkaysan kari la ninkaasi aan waxba qaban karin ee kursiga lagu jiidayo ayay u adkaysan kari waayeen. hamiga sare aan xagga gaalkana idinka tusiyo saynisyahanka maanta cilmiga fiisigiska dunida u caansan ee mulxidka ee kutubtan maanta caanka leh isna waa muqcid waa sida ninkaasi oo kale waa kursiga ugu sareeya Cambridge University kursigu Newton fadhii jiray waa ninkii fadhiyay dhawaan baa la siiyay taqaacud inuu ka fadhiisto waa Stephen Hawking waa nin Ingiriis ah oo isagoo 12 jir uu ku dhacay shalal oo jidhkoo dhami shalal qabo oo aan meelina dhaqaaqaynin codka mishiin baa ka soo saara. وانا theoretical physics كدنيا ugu qiimaha badan la maanta ee la tilmaamo waa ninkan le maxay qadaayadkan lagu tilmaamo meelahan madow ee cirka la sheego the black holes aragtiyadiisa iyo waxa ku saabsan waa aqoonyahanka dunida hogaaminaya. hadalka mishiin baa ka soo saara meel dhaqaaqaysa ma jiro muu isooranin war muqcad baatayaan meelina u noolayne hankiisi wuxuu gaarsiiyay aqoonyahanka dunida hogaaminaya cilmiga fiisigiska inuu halkaas noqdo isagoo kursiga lagu jiidayo oo carabka aan ka hadlayna bahashatan ay ka hadlinayso. idan qofku hadduu han leeyahay walow jidhku uu xidhan yahay oo aanu jirin hanku meel sare u gaarsiiyaa. ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحي نوغو تلمامي قصان بدن دين كورمو لبن نبي ومدنا
dunida oo dhan loo fudaydiyay waxa yaalayba nabi sulaymaan ilaahay buu wuxuu weydiistay maxay mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di mulki inta leeg baa ilaahay siiyay jin iyo insiba loo sakhiray dabaylaha loo fudaydiyay aqoon dawladda inta leeg islaamiga buu maamulayo xukumayay han uu lahaa oo waa kaasi jin iyo insiba maamulayay ilaahay markuu sifeynay wuxuu ku sifeeyay maxay ni'mal abdu innahu awaab ilaahay waxa kale quraanka uu ku sheegay nabi manzilada isna gaadhay laakiin isna jiifa oo 18 sano jiifay oo laga wada tagay oo tamari ka dhamaatay oo dhulka jiifa laakiin hankiisu yahay mid rabbi ku xidhan oo aan dunidan iyo waxa fudo yaalo dhamaanay u muuqanin isna bisabrihi hankiisi iyo hamadiisi waxay gaarsiisay in ilaahay uu ku sifeeyo isagana maxay nafsu ta'bir ni'mal abdu innahu awaaba ilaahay isagana ku tilmaamay waa nabi ayub idan jirku isagoo xidhan oo qofku sariirta jiifo ayaa hadduu hansare leeyahay uu noqon karaa maxay uu noqon karaa mid meel sare u gaarsiiyo walidaalika ayuha alxiba waxay leenahay qofka hanku iyo himada sarraysa meelaan camalkaagu gaadhin bay xataa ku gaadhsiin kartaa aakhiro nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkeena oo tilmaamayay man hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila ninka wanaag ku hamiya ee xataa aanay u suurtogelin inuu qabto ilaahay wuxuu u qoraa maxay xasana kaamila baa la yidhi wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man sa'ala allaha shahaadata bisidq بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ننكا إلهي سدب ويدست شهادة إنه جهاتم أو شهاده هنكيسو هلكاسو جوغا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه إلهي سبحانه وتعالى وحو قارسيا منازشه شهادة حتى هكو قريودنا محي فراشي سكركي سنة هكو قريوده بل النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامي إن بالمدينة للرجال ما صرتم مصيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم مدينة رقبة شوقيب النبي يقول غزوة تبوك مركي الله بحي لقبتي دقال كاسي وحي هيد وقتي سمرة حقاية وكلل وقتي كان دي سعودي وكونتاكية وحقادان دنك كلام مركي الله يقنا waa waqtiga ugu barwaaqo badan de khaliijka waqtiga timirtu u bislaato dagaalkaasi wixii uu nabigu ka xayn karay uu ka xeeyay saxaaba u timi rabtay inay raacdo laakiin wax la fuulaan haysan lamana lugayn karo oo waqtiga kan de temperature-ku muddo fogna waa la soconayay temperature-kuna 50 degree buu maraya meel cid lugayn karta ma jirto qofku waa inuu wax saaraada waa in wax laga koox saxaabada kamid uu waayay nabigu wuxuu saaro quraanku waa ka inoo tilmaamaya iyagoo ilmeynaya inay noqdeen xazanan iyagoo ka murugaysan inay nabiga raaci kari waayeen hamigoodu wuxuu ahaa inay jihaatamaan miinis kastoo ay samayn karayeenna way isku dayeen bale waa u ooyeen calala qalin la qaadana waxba waa ka suurtoobi weyde laakiin nabi maxamed wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markuu soo noqday ee uu soo socdo saxaabadii la socotay wuxuu ku yidhi magaalada madiina rag baa jooga aydan socod soconin ama dooxo waadi aydan ka tallaabin ilaa iyo waydin la socdeen xabasahum alcudur buu nabigu yidhaha xabasahum almarad fi bacdi riwaayaat yacni hamigoodu iyo niyaddooda xaggan gaadhsiisnayd bal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay ninkii hijrada u xidhxidhay ee dabeetana dhexda ku geeriyooday qad awqaca allahu ajrahu calaa qadri niyatihi buu nabigu yidhi ilaahay ajarkiisa wuxuu dhigay niyadiisu halkay gaadhsiisnayd bal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa dadka badh maa min imri'in takunu lahu salaatun billaylin fagalabahu calayha nawmun إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه نبي وحلاي ما جرى قف هبينكي لازم يجرين صلاة الليل كيسة قدان مرة بكسيحن جرين لكن أي هبين هرداد الله تكتي أو يشوك حق بعض السي
كاجركي والله قرية أبو النبي عليه الصلاة والسلام هرددي سنة صدقة إلى هي سيئة كواحد ولبا
وأصحاب الهمم العالية وضد هن له هن وحقبض له وضد هيكسي له هيكسي وحقبض له وضد هير أموضه وصعد كان قبين الصعدة لكن مرارك قاركود أي أود حكميسه حتى هدي أود حكميسه عند الله أجر كوالي ما ونبغو تلمامية هنكو وحو تلمامية بني آدم كو دادك بربا ونبغو كو تلمامية هنكي سلو لنكا كو قال آخره إلهي قرآن كم حينو تلمامية محي وصابقوا إلى مغفرة من ربكم صارعوا إلى مغفرة من ربكم صارعوا يسابقوا بإلهي وايري أبرتما إيا أردقتما إيا وهون لولنقلا ومحي اللولما إنا قادان وحل اللولما يوائن لقاده هدف كيل الربي وإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماوات لبدا آيات القرآن سورة الحديد النسامية هاي سورة الحديد آل عمران إلهي سبحانه وتعالى وحينات الماميين إنه نخترنه برتنه بل برتن كاهد نبي محمد وحلي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 1000 درهم 100,000 درهم درهم أيها بقول كنوا درهم كديري بالنبي قولي بل درهم بقول كن لبرتما يقياس أما كن درهم وحنفلا يا حديثك إنه 100,000 ها أيا كان حديثك إذا كان تحقيقين لكن waxa meesha ka muuqata hal dirham oo kunan la baratamaya sidoo la baratami karaya wuxuu la baratamaya hamada kala nooc ahayd midna xooluhu hagtiisa way iska daadsanay qiimo lama lahayn intan uu qabturo meesha ku tuuray ninna laba dirham buu haystayo labadiiba mid nafta ka jaray oo muxuu uga jaray hamigiisa inuu xaqiijiyo meesha uu socdo naftu may odhanin war la xajaalaysan laba ka dhacday meesha tan abaar baa ka taagan gaajana waa loo dhintaaye iska bixinin adigu aad ku noolaatide ee wuxuu rabaa hadafkiisa iyo waxa uu socdaa kala weyn gaajadan iyo warwarkan bini aadamku uu qabo saasi daraadeed buu dirhamkiisa bixiyay idan dirhamkani wuxuu loolan kula jiraa kumaankum kale maxaa loolanka la galiyay waxa la galiyay naftiisa waxa la galiyay hamiga uu hayo haddaba ayuha alxiba waxaan leenahay islaamku wuxuu inoogu yeedhayaa khuluqaasi rafiica inaynu gaadhno dhaqankaa wanaagsan inaynu yeelanno ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy reer banu israa'iil in badan baa la gumaystay dabeetana way han yaraadeen in badan baa la gumaystay way han yaraadeen wardiinta xoogu qaato xoog ugu dhaqmo dadaal haydin ka muuqdaan loogu taag waayay ilaa buur la dul qabto la yidhi maxay khuduu maa aataynakum biquwa ilaahay yidhi khuduu qaata baa la yidhi maa aataynakum biquwa wixii aanu idin siinay baa ilaahay leeyahy xoog ku qaata wadkuruu maa fiihi lacallakum tattaquun يعني dadku markuu gumaysiga tirada badan la ku soo noolaado muddo ku jiro gumaysi wuu hanjabaa ولذلك reer banu israa'iil hankoodu goor mudib u kacay bayt المقدس goor may qabsadeen kuwii hore waa tii loogu taag waayay dhaadana anagu waa fadhfadheeynaaye muusow idhab anta warabbuka faqaatil innaha huna qaacidun bayaga hankoodii noqday ولذلك reer banu israa'iil hankoodu goor mudib u kacay bayt المقدس goor may qabsadeen kuwii hore waa tii loogu taag waayay dhaadana anagu waa fadhfadheeynaaye muusow idhab anta warabbuka faqaatil innaha huna qaacidun bayaga hankoodii noqday dabeetana 40 sano yatihuuna fi lard 40 sannadood oo wareera la geliyay waxay culimadu yiraahdaan 40 ka waxa madhay odayadii hanka yaraay oo dhan daadii gumaysiga ku soo kordhay ayaa ku madhay waxa soo baxay jiil cusub oo anbiya tarbiyaysay nabi muuse nabi haaruun yuusha ibn nun jiil cusub baa soo baxay oo han leh jiilka dambe ayuu hogaamiyay markaa yuusha ibn nun بعد 40 سنة ayuu furtay bayt المقدس bal duulimaadka sidoo ugu jiray buu arkay cadceedo ka dhacayso ilaahay buu bariyay inuu cadeeda loo joojiyo xadiisku waa ka tilmaamaya saacad baa loo joojiyay cadceedo xadiisku sheegaya
si uu hankiisaasi in bayt almaqdis iyo camaaliqadiisaba uga takhalluso uu u gaadho idan khuduu maa aataynakum biquwa baa ilaahay leeyahy waar diinkaannu idiin soo dejinnay han sare ku qaata xoog ku qaata yaa yaxya khudi alkitaaba biquwa nabiyullaahi moxamed ilaahay muxuu leeyay yaa ayuha almuddathiru waxyigii ugu horreeyey rasuulnimo fara maxaa la yidhi yaa ayuha almuddathiru qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir wاlrujsa fahjur walaa tamnun tastakthir walirabbika fasbir baa ilaah yidhi kac baa la yidhi nebi maxamed marka isduuduubayow marada iska rog baa la yidhi oo rabbigaa weynee oo maradaada iyo naftaadaba daahirso oo waxaad qabanayso ha tirsan hays odhanin waxoogaa baad wallaahi samaysay oo sabir wixii kaa hor yimaadee caqaba ah xaggee loo diray wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin litundira qawman maa undira aabaa'ahum min qabl ilaayaa uu gaadhsiiyey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ay ka noqonayeen yacni nebi maxamed ilaahay subxaana wa tacaala waxaa la yidhi isduuduubka ka kac risaaladan baad xambaaraysaa xaggaad u xambaaraysaa lilcaalamiin dunida dhammaanteed oo maxaa agtiisa nebi maxamed yaalla marka kan almucطiyaat الsifriya waxay culammadu yidhaahdaan culamaa اlijtimaac lam yakun ladayhi laa maalun walaa casaakir walaa waxba toona xoolama haysan haddii lagu yidhaahdo dunidan oo dhan risaalo wax gaadhsii qoladan project balaaninka samayna haddaynu idhaahno bal hadda projectkaa ballaangareeya maxayna odhanayaan imse basharaynu u baahannay dunida saynu u weerarro u qabanno fikradda uga dhaadhicinno dhaqaale intee leeg baynu u baahannay time intee leeg baynu u baahannahay skills intee leeg baynu u baahannahay bal xisaabi adigu project balaanka intaad halkaa u baxdo xisaabiyo intuu u baahan yahay hanti dhaqaale dad kasaafa sukaaniya skills aqoon intuu u baahan yahay in dunida wax la gaadhsiiyo nebi maxamedna waa kale calayhi salaatu wasalaam hankaa xambaar baa la yidhi mushkilaadku markay ka hor yimaadaan dagaalada qaarkood la jebiyey ama dhib loo geystay ilaahay wuxuu yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum ulaclow soco walaa tahinuu ha hanjabina baa ilaahay leeyahy wahniyo idinku dhicin wahnigu waa hanjab walaa tahinuu walaa taxzanuu hana murugoonnina baa ilaahay leeyahy wixii idinku dhacay nayay murugo idinku reebin mustaqbalku ha idiin muuqdo xaggan dambe dib ha weegin wixii dhibku soo gaadhay iyo gaalo waxay ku yeesheen waxba ha eegin baa ilaahay leeyahy ha ka murugoon horow soco wa antum laclawna in maxay in kuntum mu'miniin idinkaa korreeya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaa mu'minka dhabtaa tihiin haddaa quwatu samaa ku xidhan tihiin haddaa rabbigiin ku xidhan tihiin ilaahay haddaad ku xidhan tahay idinkaa korraynaya socda waxaan leenahay hanku markuu jiro qofku meel durugsan buu gaadhi karaa abubakar asidiiq nebi maxamed baa geeriyooday calayhi salaatu wasalaam abubakar asidiiq bay muslimiintu doorteen laakiin wuxuu la kulmay mushkilad carabtu beriguu nebigu dhiman doono ka hor wufuud bay ugu imanayeen dee waxaa la arkay dawlad xoogaysatay oo socoto oo kartay dabeetana waa la iswada dhiibay koox koox baa loogu yimi laakiin markii la arkay nebigii oo dhintay koox koox baaba loo noqday magaalooyinkii muslimiinta waxay yidhahdaan 3 magaalo ama 4 magaalo waxaan dhammayn baa diintaba ku soo hadhay makiya madiiniya taa'if iyo culamaa taariikh magaalo yaro kale qaarkood sheegaan inahaasaa wax magaalaha ku soo hadhay dadkii dib bay u ridoobeen abubakar asidiiq wuxuu yidhi hankiisu wuxuu ahaa dabar nabi maxamed la siin jiray haddii la diido dagaal baan ka xigaa buu leeyahy dabarka soo ma taqaaniin neefka xoolaha waxaan lagu xidho ama canaaq waxar nabi maxamed loo dhiibi jiray calayhi salaatu wasalaam haddii la diido hankiisu halka wuxuu haystaana waa maxay waxa ku soo hadhay intii muhaajiriinta iyo ansaarta rasmiga ahayd dawladda intii kale hareerahay ka sii baxaysaa qolaba waxbay ku cudur daaratay qolo tiray xoolaha bixin mayno zakada bixin mayno qolo ridaba iyagoo iclaansatay qaarba waxbay iclaansatay qaar iska reer baadiyahooda iskaga noqday qaarba meel bay ka baxeen
waxay isku dayeen saxaabadu inay warwareejiyaan ma jirta buu yidhi dabar haddii lay diido dagaal baan ka xigaa 2 sano gudahood ayuu dawladdii dhammayd dib u soo celiyey bal ee labadii dawladood ee dunida ugu xoog badnaa weerarka ku bilaabay 2 sano iyo dhowr bilood buu ahaa abubakar sidiiq imaam almuslimiin laakiin hankiisu wuxuu gaadhsiisanaa wixii nebi maxamed ka tegay calayhi salaatu wasalaam isagoo nool inaanay nuqsaamin intuu abubakar nool yahay ayunqasu diinu ana xayuba taagna war ma diintaa soo yaraanaysa anoo anagu nool buu leeyahy anoo nolol igu jirto miyay suurtagal tahay inay diintu soo faydanto soo xaydanto oo hareeraha ka soo durugta macquul maaha buu leeyahy dabeetana hankiisii ilaahay waa u rumeeyey ciidan aan aad u badnayn buu wixiiba dib ugu soo celiyey bale ciidankaasi ayuu bilaabay inuu shaam furashadeedii iyo ciraaq iyo beershiya furashadeedii uu bilaabo dabeetana cumar baa ka dambeeyey oo gaadhsiiyey meelaan dadba gaadhin yacni dadku hadday han leeyiin ma xadayso awoodda markaasi agtaalloo qura maaha wax xadeeye uu ka fakeraa ayuha alaxiba ma aha waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan waar nebi maxamed dee ilaahay baa la socday oo taageeraya yaa adiga ku taageeraya iska wax waliba ka suurtagal baa tahay nebi maxamed rabbigiibuu taageere ka haystaye ama abubakar iyo cumar iyo kuwan awliyaa ilaahay bay ahaayeenoo rabbigood ku tiirsane dee malaa sida kale wax ku fahamtaane hadda gaale han lema tilmaama hankooda caddaystay oo waxay rabeen gaadhay kuwan ayaa taageerayey يعني وقالوا ما عندهم شيء يعني موتستونك صوميتان مغل موتستونك جاينو بلابي جاينو مدادسكو نوعا وكنتن يشن عرقي وكلا نوعا انت اصافو كلا نوعا كو هدلا وودن لقميستي 400 مليون بو وقتiga ahaaba la yiraahdaa tiradiisu meelahaas u marayay 400 milyan obium warkiiba hore lagu qaado 100 milyan oo kamidaba drop out ayaa maxay afyuun addicted 100 milyan oo wadanka ku nool ayaa afyuunka caba oo darbiyada jiifa waa rubuc wadanka oo dhan waa wadan beeraley aan waxba technology oo lin Mautistan wuxuu u guntaday wadanka caynkaasi inuu ka saaro oo dib u kiciyo isku dayuu sameeyay kuwii hore oo dhame kawaaris bay noqdeen isku dayada qaarkood wadanku mariyay waxay yiraahdaan isku daygii afraad jiilashiisa ka dambeeyay si wadeen baa hadda guushan gaadheen anyhow from 1949 ilaa hadda yani ilaa tan inuu sheeganayno 12 sano inaga daaweynta China maanta dunida meel kasto kamida product kiisa yaala waa wadanka labaad ee dunida u dhaqaale badan waa wadankaasi kumaanku milyan taagan waa wadanka dunida laga haybaysanayo oo wadanka nuclear power-ka oo wadanka technology-ga oo wadanka gantaala cirka diraya oo wadanka astronomers-ka ragga cirka u diraya da gantaale binaadam waa ki bilaabay inuu diro Russia de China awal Russia iyo Mareykan qura binaadam cirka u diray China saddexeeyo isna binaadam cirka u diray halkaas ay marayaan China inta leeg wuxuu ka soo bilaabay from zero ground meelaan waxba ka jirin wadan hadaynu inagu leenay qaadka ina halaagay war 100 milyan oo drop out ah joogay oo afyuun cabaya qaadka waxbaaba miirka ku hadhaye aan miirka waxba reebaynin waxbaaba ka soo hadhaya kana waxba ka soo reebayn laakiin hambulaha binaadam han labu aha indiyadan 1 milyan ee haddana gaajoonaysa caankana maanta waxay ka mid tahay dhaqaale 20 sano 30 sano soo socda dunida waxa la filayaa maxay xagga u dambaysa inay gaadho Singapore waa dawlad aad u yar Singapore waa tuulo dawlad ma waa tuulo waa 24 kilomitir baan u maleynaya square meelaha yani waxa laga yaabaa fadhiga Hargeysa inay ka weynti Singapore haddana dawladda yar inta leg 2000 oo baa ku yaalan rajaynaya hadaan idakiradu qaldan 2000 oo institute oo farsamo laga barta ku yaala shirkadka reer galbeedka Ingiriiska qura 600 shirkadood kaga taala waa madaxweynahooda yar ra'iisul wasaarahoodu ma ninka labaad ee dunida ugu lacag badan ee mushahar qaata waxaan u maleynayaa madaxweynayaasha dunida tirada badan la nusbu ka lacag badan yihiin ra'iisul wasaarahoodu
waddankan yar ciddii samaynaysayna wuxuu lahaa markuu bilaabayay dhul sabkha baa la iga tegay buu leeyahay dhul meel yaroo biyo fadhiisana soomad ogid ciidda dhulka lagu dhiso dhulkoodu ciid male sooma ogid bal adigu waddan qiyaas aan ciidda dhulka lagu daaraa lagu dhistana lahaynee dabadda ka soo dhoofsada ciidda daaraa lagu dhista cabaarad baa looga soo qaadaa maxay maleesiya siisa biyaa lacbana maleesiya siisa yacni muqawamaat alxayaat ma yaaliin haddana singapura maanta waxay ka mid tahay maxay dunida dhaqaalaheedu tagay ee horumaray teknolojigeedu tagay bay ka mid tahay hal oday oo maalin dhaweyd dhintay ayaa u kacay oo xadkaasi soo gaadhsiiyey kuuriya aljunuubiya eeg ma ilaahay bay rumaysantay waxba ma rumaysnaa jabaan eeg jabaan 150 sano ka hor waxay ka mid ahayd feudal systemkii beeraley waxba haysanin bal aan qiso idiin soo naqliyo oo siharo nin la yidhaahdo doctor tawfiiq alwaaci ayaa xikaayada soo naqliya inkastoo dadka aan baadhaanan hore u helin magaca kan laakiin waa nin say sheegayaan samura family-ga samura family-gu waa middle class-ka qabaa'ilka ka mid ah jabaan waa qabaa'ilkii xaashiyada boqortooyada ku dhawaan jirtay ciidamada ahaan jiray jabaan ilaa 150 sannadood buu cilaaqaad la lahaa waddankan jarmalka la yidhaahdo inta badanna saaxiibbay ahaayeen in yaroo dagaalkii labaad buu xagga ingiriiska jabaanku yaro raaceen waxoogaa dagaalkii koowaad baan leeyahay waxoogaa dagaalka koowaad iyo agagaarkiisiiya ayay jabaanisku xagga ingiriiska mareen laakiin inta kale jarmalkay saaxiib ahaan jireen dagaalkii u dambeeyeyna la wada jabiyey waxay isku dayday jabaan arday bay diratay la rabo inay wax ku soo bartaan waddankaasi ninkan magacan le baa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa hamburg university buu tegey waxbarashuu bilaabay waa group arday oo la soo diray waxaana loo soo diray aqoonta Germany in la soo raro Germany-na waa meelihii dee galbeedka hogaaminayay technology-giisa sideedaba technology-gu meelaha ugu badan oo ku faafay dee waddanka Jarmal baa ahaan jiray wuxuu leeyahay ardayga kani markaan master qaatay oo auto mechanics buu dhigtaa الميكانيكا markaan theory-yadii iyo bookskii iyo wixii ayay macmal bana geey waayeen buu yidhi theory uma loo dhigaa nadariyaad jaamacad iyo book iyo drawing iyo wax unbana lagu wadaa buu yidhi meel farsamaba waan arki waayey anna waxa iga go'an buu leeyahay inaan waddankii horumariyo waddankana dee buuga ku horumarin maayo si aan yeelo waa inuu tala kala keenaa maalintii dambe ayaa waxaan arkay buu yidhi meel macrada oo injiino muxarrak injiinaya talyaaniya lagu iibinayo 2 horsepower ah dabeetana injiin baan baabaayacayo mushaharkaygii oo dhan buu la qiimo noqday buu yidhi hal injiina baan mushaharkii siista xabadii injiinka ahayd anigoo ku faraxsan oo qaadi karayla ayaan gurigaygii la tegay buu yidhi waxaan idhi buu yidhi kani waa modelka haddaan ku guulaysto waxa kalena waan ku guulaysan doonaa injiinkii buu miiska saartay halkan rafkaan kala soo daadegay buu wixii buug lagu akhriyi jiray iyo wixii sawiro injiinka warrabay iyo wixii oo dhan waxaan ku tala galay buu yidhi injiinkaasi inaan furfuro bool kasta iyo bir kasta meel dhigo bir kasta sawiro sideeda u dhigo kala wada daadiyo kadibna aan dib isugu wada celin karo dabeetana aan mar kale ka shaqaysiin karo si xirfadii ku jirto xabad walba u sawiray mid walba meel u dhigay waday 3 maalmood bay igu qaadatay buu yidhi inaan kala wada furfuro oo dabeetana dib u xidhxidho oo dabeetana kiciyo injiinkii waxaan ku guulaystay buu yidhi inuu kaco aad baan u farxay buu yidhi marka kaahinkii watay yani dhaqanka iyo hidaha iyo waxoodan in la ilaaliyo inagu intaynu diraawn bay lumaane kuwan la diray waxay iyagu jabaan ku dartay kaahin xataa dhaqanka iyo diinta iyo waxaan u ilaaliyo la socda kaahinkii baan u yimi buu yidhi waxaan idhi buu yidhi maanta waan soo guulaystay maxaad samayso waxaan idhi buu yidhi waxaan soo furfuray hal injiina baan intaan midhmidh u kala tuuray oo meelaha dhigay ayaan dib u farsameeyey dabeetana dib baan u xidho waan ka shaqaysiiyey shaqo aad u fiican baad qabatay buu yidhi laakiin waan ku tijaabinayaa injiin mucatal oo kharibmay baan kuu keenayaa buu yidhi kaa haddaad ka shaqaysiiso markaasaynu wada hadlaynaa
هو بحيبوا له إنجين كلوي كاني أو قريبا فرفر كاس بيقول وحى حن صار أو دبتنا السماء إنجين كي بنصوري وكلا وضع دقيقة مد بميل بان دقيقة صدح براد أو عنمي أو دبات الجادي بان كسر حلي بيقول صدح دي براد بان دبئي مبرد كه فورتشن كأنت تجيب برت مرة الغبوشية مرة لطمه أيان صوتن طيبودي صدح براد بان صوتن طيوكوي يكلا أيان سوسة يبودي دبتنا دبانو حد سنوان كشقيسي تنا طبعا عشان يقول قادتي بيودي مالمها وشقيني وحولي هل مربا وحنا إن يرنا وان سحدا أنت كلنا بحكم دول فرديا طبعا مالمود بيتنا يقول قادتي بيودي عندما يو إيانا وعندما يي دبتنا وحنا يبودي وحلا يبودي ماستر ديجري بعد قادتي واحد قشة دكتوراه بروفيسور كيجي سيود بيودي ماي دكتور كدوني ما يوان يبودي جبان باي سوقيسه جبان si aan wax uga noqdo injiinkan hadda gartay sida la isugu xidhxidhay de birtiisa waa inaan samayn karaa birtiisa saan u samayn karana waa inaan warshadaha birta dhalaaliya taga kuwaana wax la isku ma barayo shaqaale ka noqo xamaal baan bilaabay buu ka shaqeeya warshadahan birta warshadahan lagu dhalaaliyo ironka aluminumka biraha warshadahan dhalaaliya ayuu xamaalnimo ka bilaabay inuu عمالينتان dhuxusha ku gurtiyo waxaan inuu noqdo ka shaqeeyo 8 sanadood buu waxa waday oo baranayay sida birta loo dhalaaliyo dhagaxa inta la soo qodo sida loo kala dhalaalin karo bir loona kadib uu noqday Nagasaki buu tagay boqorka maqlay ninkan iyo arrimuhu wado 5,000 pound buu soo diray buu boqorkii Japan oo leeyahay waxaad u baahantahay qalab soo siiso qalabkii warshad kaamil baan soo siistay buu yiri waxaan ku qaadabaan waay mushaharkaygii baan hadana uga dhigay buu yiri nooli dabeetana qalabkiisii buu la yimi Japan markaan imi baa la yiri buu yiri boqorka raba inuu ku soo dhaweeyo ku yimaada may boqorka arki maayo buu anigoo aan qalab sidin muharrakaat anigoo sida mooyaane iima cuntanta wali in boqor soo dhaweeyo warshadiisii yarayd buu rakibtay fortune-kiisii iyo birihiisii buu dhalaaliyay wixiisii buu waday muddo kadib 9 sanadood markuu rafanayay waqti ku dhadhow say sheegayaan ayuu wuxuu soo saaray injiinadii koowaad muddo markuu rafanayo ma 9 injiin buu soo saaray isagoo 9 injiin wata boqorkiisii la kulmay waxay dhahdaan waa gaalkani waa ninkii bilaabay ama raggii tiirarka u taagay industrialka maanta ay leedahay maxay Japan ay leedahay Japan reer galbeedinta ay u yimaadeen uguma deeq cilmiga loo wada reer miyiga tiiniya beerahan ka kaalayo technology-ga barta cid kuma oran laakiin iyaga u dhididay maxaan tan uga jeedaa qofka han kale waxa uu rabo uu xaqiijin karaa qofku hadduu han leeyahay ولذلك بقى إلهي قرآن كوحين ليه سيقول نبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بقى نبي قالوا والصبر يعني إنه لا شو عقبات بيلا ذي مركب كلها هم بعض يالنيسا معناه ما هو واحد قبطة بريح أنت هذا رقاقضون إنه يسوب وذي يسوي حقاق يسمعها 1000 مشكلة بقى كاهر إيمانية أنت أسوأ عرقلضات بقى إيمانيسا لكن صومالي دي هوري محي ورنشيرين وحي محي رقنا وقعه ربنا أقبله والرموبان يعني حتى أنك الريربية جاء صوماليات وحو الرميسنا ninka waxa ninka la yiraahdo haduu rabbigi ka hashado inaan mustaxiil jirin saas oo raamaysanaa yani inuu xaqiijin karo waxa uu doonayo inuu han leeyo waxan uu guntaday ba muhiima ilaahay saasi daraadeed nabigiisa wuxuu ku leeyahay fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul usabir siday u sabreen ulul azmiga rusushu waxa quraanku ina baraya inaynan meelaha hoose joogin ee maxaa layna yidhi wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman wajcalnaa min almuttaqiin ma hada wajcalnaa lilmuttaqiina ilaahu kuwa ilaahay ka cabsada imaam nooga dhig hormoodka naga dhig weeyaan gadaasha kuwa haysta ilaahu naga dhigine ahlu taqwa hormoodkiisa ilaahu kuwa naga dhig ilaahay wuxuu ina leeyahay fastabiqul khayraat فاستبقوا برتم بالا ليه وبرتم محي خيراتك إلهي وحنا ليه سابقوا صارعوا يصارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس
متنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. إلهي وحين لي ديري وحقه هرتك نبينا عليه الصلاة والسلام وحين المامية إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ور إلهي حتى هداوح ويديسان إنسان إلهي محي ويديس تباليدي فردوس الأعلى. إلهو جنة يقال يقرأها ورنه إلهو جنة تيدا سري يقاده. يعني النبي محمد هانكو بري صحابة ديس وحلي حتى هدا جنة إلهي ويديسان إسو جنة ميله هذا سكها ضلبان محاد كضلبتا إلهي فردوس الأعلى. ولذلك النبي حلي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء. تمرت مركب كوا أود شيء ربي بالله كاشدا dadka waxa uu liitay buu nabigu yiri ka maxay waxa uu caajisaysan oo liita ka ducadana ka caajisay. waxaynu u baahanay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay in allaha yuhibbu macaaliya al-umuur wa ashraafaha wa yakrahu safsaafaha. ilaahay wuxuu jecel yahay arrinta kuweeda sareeya iyo kuweeda maamuuska leh wuxuu necab yahay kuweeda liitay hooseeya. أصحاب الدناء إننا نقولنا معها اليد العليا خير من اليد السفلى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نبي حلي عليه الصلاة والسلام مؤمن كحوجا قوي الإيمان قوي العقيدة قوي العمل قوي مؤمن كحوجا أياك خير بدن بالليلو إلى هيك تسلق جعل بدنيه. مؤمن كضعيف كهلا بدو أنا خير بكتير مردي مؤمنين. احرص على ما ينفعك وحكوا أنفعك الدال بالنبي محمد لي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز. إلهي كالميسو وأبد كها عاجز. نبي حليه إن قامت الساعة وبيد أحدكم فصيلة والقيامها دور عادي قلت مراد يرجعنتك وهي هدات كجارتين كرت كجارتي والنبي يقول إيه هذا هو قيامي بابا دعيا يا عنيا ديل ويدا قيامي بابا دعيا قلت مراد كم حد كي يلهي سبحان الله بس حاجة سكتور بدي أقول الله صحيح كما نبي محمد حين لي عليه الصلاة والسلام هذا قيامه دعيا وهاد قلت مراد قعنتك وهيسو وهاد كجارتين كرتو كجارتي بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام يعني لا تلن للعقبات ويان عقبات يي وحيابا بن آدم كيسور تاقا يي كل عن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واركوا المؤمنين تو صبر بالليل والله صبر نكتا مشاكل ودن لا صبر نكو يلا قابضين وحنوبة هنا أيها الأحبة. درسينا ودرس أدو قول بالله نصوص كسار ورتقول هدان سيد هذا آخر بوقت قاضنية لا بقى قصة النبي قوني دين كشيء عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وصفره أيان أعرابي يكون صباحي نك أعرابي قابل سود ويجي سفي عم بوز ومرتي صار دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام هداي عيديتك يا لطه وأبل جود يشرب ay jirtay cid nabi maxamed wax tartay oo aanu isku dayin waxa ugu badan inuu taraa aba allah wa ma hay nabigu kaleey salaatu wasalaam cid kasto yad ku leh abaal ku leh waa abaal gudi jiray. markuu arkay ninkan marti sooray buu wuxuu ku yiri ii ballan qaad inaad noo imanayso noo kaalay buu ku yiri madiina iga daba kaalay oo ku abaal gudayay. waa iska tagay nabigu kaleey salaatu wasalaam meeshii markuu tagay ayuu madiina kaga daba tagay. مدينة مركو يمبو نبو سودوي كذبنا نبو حكوري سل حد أنت يويدي ما أنت وحي ويدي سو نك نواني ريرمية هنك نك بادية شوغانا أنت بدن ده هنا هؤلاء نولي هاي بقف كلها هني هاي ده بتنوع حودي راح نربا هلا نفوله oo waliba irmaan bay riwaayadka qaar ku tilmaamay riwaayadka qaar koodna waxay tilmaamayaan iyo ceesaama aan maallo xoogaa adhiyo irmaaniyo iyo neef geelo aan fuulo dabeetana siiya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala
همومتنا إن إلهي إنه حقيقي الصن يا آخري أدوم بله. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.